su-aasha Xuseen Aforogaska waxaan la yiraahdo sarifkan lacagtan la sarifayo ee laga macaashayo bariyahan dambe casriga ah waa mas'ala runtii ishkaalkeeda leh ama aynu aragna marar badan dadku inay ka murmaan dhalinyaro badanina arinta ay aad u isticmaalaan qaarkoodna markii isticmaalkii ay yara badiyeen waxna ay ka heleen lagaba fujin laayahay oo fatwadiiba ay mari laadahay masalada marka soo ururiyo waxa ku jira waxyaabo dhowra oo xaraan ka dhigaya culimada islaamkuna sidii u badan yihiin waa inay xaraan tahay ribadii la oran jiray riba al-fadli kala badnaanshaha riba yad baan leeyahay ribadii xagga gacanta way ku jirtaa oo marka wax la kala sarifay markii la kala qaatay ahay waxaynu ogsoonahay dib dhacba ku jira ribadii kale xagga amaahda iyaduna way ku jirtaa waxa ku jira wax qarar la yiraahdo oo dadkii lagu kadinayo waxa ku jira saynu ogsoonahay dadka inta badani wax kama helaan qof mutamarris oo aad u yaqaan mooyaan boqolkiiba 80 dadka inta badani wax kama helaan marka qofku hadii uu doono inuu aad uga dhargo waxa fiican in si madax bannaan oo aanu dhinac u qufulnayn inuu baaritaan ugu sameeyo culimadu aad bay uga qoreen oo waa laga hadlay masalada iyada marka kolka loo eego usuusheeda iyo sida loo isticmaalo ribadaasina way ku jirtaa Allah ku barasho waxaad bal meelahan ay ribada dheeraadka iyo dibulligu kaga jirayaan haddaad u cadeyn karto xudooni in loo yaro cadeeyo masalada baxthi badan bay u baahan tahay oo waxay kulay culimada qaarna aad bay uga jawaabeen oo waad ka akhri kartaa luqado badan ba af Soomaali iyo af Carabi intaba jawaabaha waad ku heli karaysaa qofka internet ka baara uu heli karaya labada lacagayo marka la kala sarifo waxaynu ogsoonahay waxa shardi ah sidoo nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam yadan biyadi iyaduna way dib dhacdaa oo markaaba lama kala qaatee sarifkaaga kolka imika aqadkii heshiisku u dhaco waqti kadib ayay noqonaysaa kala qaadashada la kala qaadanaya waxaana loo baahnaa in markiiba la kala qaato waxaynu ogsoonahay qofkan isaga ah wax ku amaahinaya gacantan wax ku amaahinaysa ama banki wax ku amaahinayay ama qofkan meesha ku jiraaba isaguna manfaco iyo dheef ayuu ku leeyahay shayga marka uu amaah yahayna waa inaan wax manfaca iyo dheefa aanu ka helin taasina way jirtaa waxa kale iska macruufa dadka muslimiinta xooloodii intay meel ku shubaanintoodii badnaa inaanay waxba helaynin marka cumuuman kolkaynu soo ururino qofku uu siyaasan karaa buxuuthta iyo daraasadaha laga sameeyay Forogaska waxa u fiican dhalinyarada inay iskaga hadhaan waa xukunkiisuna culimadu waxay u badan yihiin xaraam yahay wallahu a'lam